odayaal dhaqameed culimo dhalinyaro ayaa goobjoog ka ahaa kulankan ballaaran oo ahaa mid beesha Habar Nugaale ay ku dooranayeen nabadoon cusub kaas oo qaadaya mas'uuliyadii nabadoonnimo oo horey u hayay Allah u naxariistay nabadoon Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle Qaloosh kaas oo koox hubeysan ay ku dileen September 24keedii 2019 sanadkii aan soo dhaafnay meel aan ka fogeen laanta suuqbacaad ee degmada Yaaqshiid dhammaan dadkan oo kamid ah beesha Habar Nugaale ee kamidka ah beelaha Soomaaliyeed ee dega gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Muqdisho ayaa isku raacay in xilka nabadoonnimo ay u doortaan Abshir Cadow Hiraabe hadaba qaar kamid ah odayaasha culimada iyo dhalinyarada beesha ayaa soo dhaweeyay nabadoonka cusub culimada inay nabadoonka la shaqeeyaan nabadoonadu inay nabadoonka la shaqeeyaan akhyaarta kale waa wada waxgarad waana wada waxgal samaan iyo waxumaan waa wada kala yaqaan inaan loola kala hirin ee waxa la wixii talaad tusaale ra'yi nabadoonka la shaqeeyo nabadoonkeena beesha aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda calaamsaarka waana taageersanahay haddii aan nahnay bahda dhalinyarada beesha aad ayaan ugu faraxsanahay nabadoonkeena inaan ku soo dhaweyno si farxad leh si nabad ah iyo si hufanaan oo ku dhahan hufanaan shaqo anigoo ku hadlayo magaca dhalinyarta aad iyo aad ayaan nabadoonka uga hambaleynayaa halkan aniga waxaan soo istaagay maahan nabadoonka aadaan uga hambaleynayaa nabadoonka soo dhaw anigoo ku hadlayo magaca dhalinyarta waxaan rajaynayaa hadaan been sheegayn dadka ugu dhow haddoo khalad galo Abshir Cadow inay gacanta ka qabtaan ninka oo khaladka ka galana bini'aadam khalad waa gali kariyaa inuu san noqonin nin asiga dhibaa inuu naqan aad ka rajaynayna insha Allah taala haddaan nahay culimada maadaama uu Sheekh Xuseen yiri masaajida la soo diraayo macalin saa gudo waxaynaya asoo gunaanada anigoo codka culimada ku hadlay nabadoon Abshir Cadow Hiraabe waa garab taaganahay waana la shaqeynaynaa guud ahaan anigoo idin salaamaya waxaan u mahad celinayaa qaraabadii yani mataqaanaa talooyinka isweydaarsatay qaarna codsiga dhiibay qaarna ka soo jawaabay iyo ninkii yani mataqaanaa markii dambe inuu hoggaanka dhaqanka ee beeshan uu noqdo la isku raacay oo anigu aan aqoon fiican u leeyahay nin aad u wanaagsan oo xishoodo runtii adkaysi badan xogogaalana ah inuu yahay aan ogahay oo ku faraxsanahay waxaan aad u soo dhaweeynaa anoo ku hadlayo magaca dhalinyarada cidda nabadoon Abshir Cadow Hiraabe inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ku soo dhaweeyno aqbalaada cidda aqbashana anakoo dhalinyaro aqbashanahay aad marka hambali ayaa leeyahay nabadoon Abshir Cadow guuleyso waa lagu garab taagay insha Allah waana lagu la shaqeynaa insha Allah adigana waxaan ku rajaynaynaa insha Allah inaa cidaad meel fiican ku hogaamiso aad iyo aad u mahadsantihiin ugu dambeyn nabadoonka cusub ee beesha Habar Nugaale Abshir Cadow Hiraabe ayaa sheegay in wax walba oo beesha ay kula dardaantay in uu ka soo bixi doono waxaan san rabaa xilka culus oo leeydhiibay in si Ilaahay la igula shaqeeyo aniguna waxaan ku dadaali doonaa inaan si Ilaahay u shaqeeyo laalaab anigu ma aqaano haddana layga filmayo hadda umri aan ku jiraa laakiin waxaan ka codsanayaa in si Ilaahay la igula shaqeeyo aniguna wixii tabartaydu tahay hagran maayo talana diidi maayo in layla taliyo waa rabaa oo niman tala helinin waxa waaye maba tali karin war niman helinin xaajageel ma karin marka waxaan rabaa in warkana lay keeno taladana lay keeno anigana kii qaatay in ilaahay dhigaan rabaa Habar Nugaale waa mahadsantihiin meeshaan tiitalkaad ku fadhidiin amba siyaasiin amba dhaqan amba dhalinyaro amba culamo diin waxaan idin leeyahay maanta halkaad dhiibteen oo culeys in si Ilaahay la igula shaqeeyo aniguna kii ka soo baxay Ilaahay iga dhigan insha Allah rajay hadii Ilaahay yiraaho si kastaba nabadoonka ayaa lagu caleemo saari doonaa magaalada Muqdisho Maxamed Yaxya Jiinow 5 Somali TV Muqdisho.